waxaa la yidhi nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban dalka Indonesia waxaa ku nool jaaliyad loo yaqaano Toroja mise Toroja kuwaasi oo meydka kula nool guryahooda muddo dheer ilaa dhowr sano ka hor aaska xitaa kadib aaska sanad kasta waxaa jira xaflado gaar ah oo lagu dhex milmayo meydadka kuwaasi oo laga soo saaray sanduuqyadooda sidoo kalena loogu labisay dhar cusub dadka Toroja waxay ku nool yihiin jasiiradda Sulawesi sanado badan Sulawesi waxay ahayd goob dalxiis oo weyn halkaasi oo qof kasta raba inuu tago si uu indhihiisa ugu soo arko sida dadka dhintay ay ugu dhex milmi karaan kuwa nool iyo nolosha oo caadi ka ah halkaasi caqiidada ay aaminsan yihiin dadka beeshani ayaa ah in xitaa dhimashada kadib ruuxda qofka dhintay ay weli ku sii nagaanayso goobtii uu ku dhintay welina uu u noolaanayo sidii uu weli u noolaa geerida ka hor waxay sidoo kale aaminsan yihiin in geeridu ay tahay xaalad jiro oo marka qofka dhinto ay weli la ildaran yihiin xanuunka loona baahan yahay in loola dhaqmo sida bukaanada kale ee nool haddaba marka uu qofka dhinto waxaa jirkiisa lagu daweynayaa daawo dhaqameed gaar ah oo la isku dardaray iyadoo marka dambena meydka lagula tacaalo dawooyinka formalinka ee jirka ka ilaaliya in uu gogo'o ama soo uro jirkana qallajiya si uu maqaarkana si caadi ah u sii ahaado meydka waxaa loo diyaariyaa aqal uu ku noolaado halkaasi oo lagula tacaalo sidii qof bukaana oo kale meydka waxaa lagu nadiifiyaa maro gaar ah oo biyo lagu qooyey iyo daawooyinka jeermiska dila si jirka uu u lumin muuqaalkiisa waxa uuna la sii noolaanayaa qoyskiisa balse waxaa la yaab leh muddadaasi oo dhan marka laga reebo in meydka la nadiifiyo ayaa sidoo kale meydka loo geynayaa cunno cabitaan iyo haddii qofka dhintay uu ahaa mid sigaar cabba sigaarka ayaa la agdhigayaa naxashkiisa waxa ay dadka beesha Toroja aaminsan yihiin in ruuxda meydka ay cunayso kuna raaxaysanayso waxyaabaha ay u keeneen muddo kadib ayaa laga soo qaadayaa raashinkii ayagoo rumaysanaya in horey loo cunay inkastoo ay xaqiiqdu tahay in cuntada ama cabitaanka ay weli yihiin kuwa aan la taaban sida dhaqankoodu yahay dadka beeshani waxay aaminsan yihiin in si janno loo galo meydka loo sameeyo aas qaran iyagoo sidoo kale aaminsan in masaakiinta ay jannada ka habsaamayaan marka loo barbardhigo dadka hodanka ah sidaasi awgeedna ay waqti dheer ku qaadato aasidda meydka waxa ayna doorbidaan in guryaha ay kula noolaadaan inta ay qarashaadka aasidda meydka ay ka helayaan si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran fadlan falow garee oo ku xidhnow Shakaal TV